شيشاغو يوالبان تبيديرو جنو تاغا دغماغو دعم كيسو جراعو ودان كيسو تبيا ولا يا شبيبي وانا بسني ولا يا ودان كيسو تبيا ولا يا وذكر بيت لبك محوط وحوفة بنكراني وذكر بيت لبك محوط وحوفة بنكراني عايز ويتنو ولا ليال أو ذكر نوي ولا ليال عايز ويتنو ولا ليال أو ذكر نوي ولا saraakiishii gumaystayaashii ingiriisiga ee xafladdii calan saarka joogtay waxay ilmeeyeen markii calankii boqortooyada ingiriisiga inta la dejiyay birtii uu saarnaa laga taagay calanka baluuga ah ee dhexda ku leh xidigta shanta gees ee cad laakiin ilintaasi mid ka duwan ayaa waxay ku soo hortaagtay madaxdii iyo hogaamiyaashii Soomaaliyeed ee xafladdaasi joogay oo markaasi waqtigaasi ilmeeyay markii ay arkeen calanka Soomaaliyeed oo si rasmi ah looga dhex taagay ciidii Soomaaliyeed iyadoo uusan ka koreyn ama ka sareyn calan kale sida dhici jirtay muddo sanooyin ah waqtiyadaasi oo ahaan jirtay calanka Soomaaliya meelaha qaar aan lagu arki jirin gumaysiga calamadiisa ayaa sareyn jiray ilinta ka timid dadkaasi Soomaaliyeed waxay ahayd mid farxad iyo rayn leh oo ay u qaadan waayeen in markii ugu horeysay bulsho Soomaaliyeed oo af wada leh oo diin wada leh oo isku eg oo dad walaalo ah xurriyad ay wada qaataan waxaana gobolada waqooyi ee galbeed ee uu gumaysan jiray Ingiriiska ay ahaayeen goboladii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee hela xurriyad waxaana 5 maalmood kadib oo ahayd 1 Luulyo sanadkii 1960kii xurriyadoodu ay heleen gobolada Koonfureed oo uu gumaysan jiray gumaysigii Talyaaniga isla maalintaas waxaa midoobay labadii gobol ee waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya iyadoo maalintaasi ay dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed maalintaasi waxay ugu yeereen Israaciil labada gobol ama madowgii labada gobol نقنك الصومالي وليق استليل مقالي ننك وحلا ديبك كالا وديب جير نلانك يدمعك وهاتي لدافي جير هقنا الدورة يدلك وسمي قليب بربورك الصومالي يهاد وبحكو يحولس بربورك الصومالي يهاد وبحكو يحولس Stay
xilligaasi daawadayaal aanu ka soo sheekeynay waxaa la doortay madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay yeelato waa aadan cabdulle cismaan naxariistii ee bahasiye sanadkii 1960 bishii June markii xorriyadda la helay xisbigii SNC oo ahaa farax ka mid ahaa xisbigii SWL oo ahaa xisbigii u soo halgamay xorriyadda gobolada waqooyi oo ay hogaaminayeen maxamed xaaji ibraahim cigaal michael maryama iyo rag aad u tiro badan ayaa tageen magaalada muqdisho iyagoo sida calankii Soomaaliya si loo mideeyo bulshada Soomaaliyeed waxaana ay u tageen horseedayaashii xisbigii SWL oo ahaa xisbigii kaalintii ku lahaa xorriyadda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolada koonfureed waxaana hormuud ka ahaa xisbigaasi rag ay ka mid ahaayeen yaasiin xaaji cismaan sharmaake cabdiqaadir sheekh saqaawadiin aadan cabdulle cismaan cabdirashiid cali sharmaake cabdirisaaq xaaji xuseen cabdullaahi ciise maxamuud iyo rag kale oo aad u fara badan kadib markii dadkaasi Soomaalida ah oo ay walaaloobeen ayna qaateen ayaa waxa ay horseedayaashii labada xisbi ee xorriyadda hantay ay ku guuleysteen in la dhiso jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana madaxweyne loo doortay aadan cabdulle ra'iisul wasaarena waxaa looga dhigay cabdirashiid cali sharmaake naxariistii ee bahasiye ummadda Soomaaliyeed oo ku haminaysay in la helo qaran Soomaaliyeed oo Soomaali weyn haatana himiladaasi waxay u muuqataa mid gabi dheer ka dhacday waxaan ka wadaataa gobonimadii soo jireenka ahayd ee dadkaasi Soomaalida ay sameeyeen ayaa waxay u muuqataa mid markaasi mugdisi galaysa goboladii ugu horeeyay ee calanka laga taago waxa lagu sheegay madax banaani ay ku sheegeen inay ka go'een Soomaalida inteeda kale waxaan ka wadaa Somaliland goboladii meeshii xurnimada ka dhalatay ee Djibouti iyana dawlad ay sheegteen laba gobol waxaa maamula Ethiopia iyo Kenya waa NFD iyo Soomaali galbeed jamhuuriyadda Soomaaliya oo haatan waa mid kala qaybsan oo u baahan wadaniyad in xoog la saaro sidii looga dhameyn lahaa fikraddii Soomaali weyn isla markaana ahayd fikir ay ku saxiixnaayeen dad badan oo Soomaaliyeed dhiig badanna loo daadiyay halgamayaashii ay ka mid ahaayeen Sayd Maxamed Cabdulle Xasan iyo raggii kale ee u dhintay in ay calan Soomaaliyeed la helo waatahay daawadayaal waxaan filayaa dhammaantiin inaad ka wada hesheen barnaamijkaasi taariikhda ka hadlayay bal haatan aan guda galno dadka Soomaalida sida ay u arkaan dadka degan magaalada Minneapolis xafladii 1960kii sidii u dhacday iyo sida ay u arkaan iyagoo markaa walaalahoodii dadkooda halkan uga hambalyeynaya daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أما بعد ما أنت وحائي وصوب بوغدي قوبتي دي قناحسيها تلفزيون كان منيابوليس وحان هيد مناسبة ما أتكو سابسا كوذا لوليو كوذا لوليو والا يقانا ومالنا عامة وصومالي عام اي كتاهي مركا ومالين او شيشيها دلك لغا ساري دلك Soomaaliya anagoo yar yar ayaan xasuusanaa biriga calanka la saarayay waxaan joognay Muqdisho habeen 6 saac ahayd markaan isugu soo baxnay anagoo dugsiiley ah oo aadan cadana ka qudbeeyay sugunta leed meesha la yiraahdo marka maalintaas waa maalin